kooxda abwaanada gobolka Sool ee Hidadhowr oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Laascaanood ayaa waxay kaga hadleen colaadda marka ka dambaysa soo oranaysa deegaankaasi Taleex ee gobolka Sool iyagoona baaq u diray labada beelood ee walaalaha ah ee diritu dhex martay iyagoona ugu baaqay in wada hadal iyo safarad lagu dhameeyo wax walba dhexdooda yaala iyagoo sidoo kale ugu baaqay culimada diinka wax garadka aqoon-yahanka in si degdeg loo kala dhex galo labadaasi beelood ee walaalaha ah si aysan colaaddu intaas uga sii balaadhaan baaqani waxa uu ku saabsan yahay labada qoys oo walaalaha ah oo ay shaqaaqada iyo dhibtu ku dhex martay degmada taariikhiga ah oo Taleex iyo eeriyadeeda waxaanu markaa baaqa nabadeed u diraynaa in ay sida ugu wanaagsan oo wada dhalashada iyo wanaaga arrimahooda u dhameystaan ayna ku soo dabaalaan sida ugu fiican waxaanu haddaba baaqa dheeraadka u diraynaa waxaad moodaa ummaddu dabajeed inuu jiro in laga habsaamay in la suqa yareysanayo arrinta inaynan xil weyn iska saarayn baad moodaa waxaanu markaa aad iyo aad uga codsanaynaa dadka cid kasta waxa leeyahay dhirtu sida isu xogtaba isu xoqdaa waxaana dhaqmaya ehelnimada iyo islaamnimada baana dhaqmaysa oo meesha la soo hojisay inaan uga hadalno arrinta baaqa nabadeeda waxaanu ka codsanaynaa dadku inay xooga saaraan arrinta in loo guntado maanta abaar lagu gabanaya ma jirto la leeyahay waqti adag iyo abaar baynu ku jirnaa waxaanu markaa dadka dal iyo dibad ka codsanaynaa in xooga la saaro arrintaas waxaanu markaa ka codsanaynaa in xooga la saaro arrinta iyaguna inay wada dhalashooda iyo walaalnimadooda eegaan oo ay u soo hoggaansamaan si kasta oo muslimiinta ku dhex jirta ay yiraahdaan sidaasaan wax idin ku dhammaynaynaa ayna wada dhalashooda iyo cid iska xigta caalamka ku nooleen inay eegaan intay balsahamiyaan inay eegaan cid iska xigta iyo cid iska jecel inay dunida ku nooshahay intaasaanu baaqiyaga kaga baxaynaa waxa weeye baaq nabadeed oo ku wajahan labada beelood halka wada dega walaadku aad buu uga hadlay laakiin anigu hadda waxaan la hadlayaa beelaha Sool Sanaag iyo Cayn oo ay arrinta tan u taalo waxa weeye Soomaali waxay tiraahdaa nin la sugayo wadna yaa sugi hawsha tan uma taalo Turkiga uma taalo federaalka waxay u taalaa Sool Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay waxa maxaa laga qabtay lama yiraahdo maxay u dhaceen sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa wax garadka beeraha Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay arrinta culimada wax garadka waayeelka professorada inay waqti gaar ah ku lumiyaan ilmaadeers neceb cadowgu waa ku istiraxa waa bal arrintan hoos loo eego yaan la fudeedsanin haloo kaco isku soo wada duub oo shirkan jirayd ay maanta u qabteen kooxda abwaanada gobolka Sool ee Hidadhowr ayaa ku soo beegmaya xilli ay si kordhayso colaadda ka dhaxaysa labada beelood ee walaalaha ah kuwaas oo wada deegaankaasi Taleex maamulka Soomaaliland ayaa isagu sheegay inuu kala dhex gali doono labadaasi beelood ee diritu dhex martay isagoona ciidamo u diray deegaankaasi Taleex balse arrintaasi kuma uusan guuleysan ilaa hadda lama hayo cid rasmi ah oo kala dhex gashay labadaasi beelood Mukhtaar Cabdi Jaamac Universal TV Laascaanood.